بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوا جنالكين حدق مهم وأها نادي كوبا عقد جلسي أو كتاي أوباميان أو مركل كسر لابته أولمبيك مارسيل اللي سواء كل واحد بكسابسن حرير كده حد شيء دان روم يا مانشستر يونايتد. سواء كل حدق هوري نادي كوبا عقد فولهام بولينها أو مركل بريمير كسر لابتي yuu ku biiray wax walba uu baahan tahay kulamadii laga ciyaaray Yoris oo qalbi jab ku bilowday sidoo kale Lamine Yamal nambarkiisa 10aad oo shitay kulankii shalay uu dheelay meeqa gool ayuu ku badiyay naadiga kubadda cagta Barcelona wax walba uu baahan tahay ciyaarihii dhacay xanta suuq kala iibsiga markaan arinta Sesko waa muhiim ayaa leeyahay naadiga kubadda cagta Manchester United inay la wareegto sidoo kale AC Milan gool weyn gaartay Hojland oo is adkeenayo ku adkeysanayo inuu sii joogo naadiga kubadda cagta Manchester United waxaas oo dhan ayaan falanqeyn doona ku soo dhawaada channelkeena hadii uu ku cusub yahay fadlan subscribe noo dhe like noo saar siin share gare oo asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada falanqeynta oo ku sameey doono waxyaabihii ka dhacay saaxada kubadda cagta ciyaartooyda la wareegi doono kuwa la wareegay naadiga kubadda cagta Tottenham ayaa la soo wareegtay xidigii hore naadiga kubadda cagta Fulham haddana ka yimaada Bayern Munich Bolinha ayaa qaab amaha ugu soo biiray naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur Bayern Munich xidigan waa ay soo fasaxday qaab amaha ayaa lagu soo fasaxay 30 milyan lacag ayaana madaxiisa kor saaran ilaa iyo heshiis lagu kulaatay hal sano ayuu hadda u saxiixi doonaa hal sano amaha marka waxa leeyahay 30 milyan dul saaran wax waajib ah kuma ahan hadii naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur la soo wareegto xidigan waa ay qaadan kartaa haday rabto inay la soo wareegto hadaysan rabin oo sa anficina wax oo xoog ma jiraan leeyahay marka Spurs ayaa isdhisayso xidig kalena soo qaadatay horena ciyaartooy badan u soo qaadatay marka waa arki doonaa ninkan wuxuu ku soo kordhi doono naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur sidoo kale xidigii hore Barcelona Chelsea ayaa hadda ku biiray Sunderland waa xidigii hore naadiga kubadda cagta Barcelona xidigii daayirka ahaa ee Barcelona ka soo baxay Chelsea tay ayaa hadda Chelsea ku fasaxday qaab amaah ah wuxuuna ku biiray Sunderland wax walba markaa waa isku dhamaadeen ayaa leeyahay wax iibsasho ma jirto ninkan amaah bis ayuu ku aaday naadiga kubadda cagta Sunderland sidoo kale xidigii hore naadiga kubadda cagta Arsenal Barcelona Chelsea Aubameyang ayaa asina ku laabtay gurigiisii hore Marseille Olympique Marseille ayuu markaan ku biiray heshiis baac xorta ayuu ku imaaday ninkan asina saaxada kubadda cagta Yurub ayuu ku soo laabtay asigoo ka imaaday dhankan iyo Sacuudi Carabiya marka warkii hore soo dhaaf waay ninkan waa imaaday Aubameyang saaxada kubadda cagta Yurub ayaa marka loo arki doonaa asigoo bandhig waali ah ka soo sameeyay Sacuudi ninkan meesha tayo 20 gool 15 gool oo dhalana taas iswarsi malaana leeyahay sidoo kale warar ayaa ka soo baxayo Donnarumma ee Manchester United naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa dalab xoogan ama la gali karto asiga ayaa leeyahay laakiin hadda waxay wada hadal rasmi ah la furtay naadiga kubadda cagta PSG oo ay ka doonayso xidigan wax walba Donnarumma ku saabsan markaan waa ay furmeen ha imay ayaa ka dhici doonto waxay ku soo fashilmeen Emiliano Martinez xidiga reer Argentine ee haddana u dheelo Aston Villa oo ku soo fashilmay Manchester United haatana Donnarumma ay u jeesteen leeyahay maxaa u baahan tahay guuldarooyinkii ka dhacay xalay ilaa shalay toole naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa guuldaro ka qaadatay dhigeeda naadiga ay ka wada dhisan yihiin London Tottenham Hotspur wax walba ciyaartaas la sugo xidiga badan oo kulankaas ciyaari rabay Tottenham Hotspur qalad uu galay xidiga David Raya daqiiqadii 45aad ayaa gool loogu dhaliyay hali eber ciyaartana waxaa ka dhigay sar xidiga ay dhahayaan naadiga kubadda cagta Arsenal hal gool ebertaas ayaa loo badiyay Tottenham Hotspur ayaa qaaday koob kale mar kale ayaa leeyahay 22 May ayay ahayd markay Europa League ku guuleysanayeen haatan waxay ku guuleysteen 3 July koobkii loo talgalay isku diyaarinta xilli ciyaareedka soo socdo Arsenal ayaana ka qaaday maxaa laga soo calaamay xidigii hore naadiga Sporting Lisbon Yoris ayaa kulanka daqiiqadii 37 soo galay wax bandhig ayna kama sameyn la leeyahay wax walba marka kulankaas ku saabsana ase indhaha ku hayeen ma soo gali doonaa muxuu ka sameyn doonaa naadigiisa gool uu leeyahay imaaday wax uu qowway ciyaartana saas ay ku dhamaatay leeyahay qalbi jab ayuu kala kulmay kulankiisii ugu horeeyay
asigoo dheel 25 daqiiqada ku dhow. haatana marka waa uu seegay taageerayaashii wixii dhan waa u sacbeen, waa la soo dhaweeyey, laakiin ciyaartaas wax ku lug laasho gool ma uusan sameynin. marka bandhig liita ayuu ku bilaawdaa leeyahay, waana kulankiisii ugu horeeyay kaliya 25 daqiiqo. waa arki doonaa kulamada soo socda iyo waxa bandhig uu ka sameeyay. Tottenham Hotspur iyo London marka iyada ayaa koobka ku dambeysa leeyahay, oo Arsenal oo lagu dhaga hadlayaa maanta. xidig garoonkan Richarlison qaataa leeyahay. marka Richarlison inuu soo dhigay ayuu wuxuu taag ku dhahay Gabriel Magalhaes. inaba caadi maahan, xamaasad aan caadiyan ayaa meesha ka jirto. marka waa arki doonaa xamaasadaas ilaa ay meesha sii socoto. Thomas Frank macalinka ku cusub naadiga kubadda cagta Tottenham ka imaaday dhankan iyo Brentford, asigana aad iyo aad ayaa loo buunbuunaa. waxaa leeyahay ninkan seasonkiisa waaye, seasonkan halistiisa wata, saxiix dhowr uu sameeyey, haddana Bolino kusii darsaday. marka shalayna intii aa ogeen ayuu Arsenal ku garaaco, daaficiisna waa xirtay. marka Thomas Frank kusoo dhawaaw naadiga kubadda cagta Tottenham Hotspur ayay leeyihiin taageerayaasha Tottenham. sidoo kale naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa guul muhiim ah gaartay kulan ka tirsanaa isku diyaarinta xilli ciyaareedka soo socda ay dheeleen. naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa 7 gool iyo 3 ku adkaatay, goolal ka kala imaadeen xidigo badan oo ay wada qaybsadeen. bandhig waali ayaa lasoo bandhigay shalay, Lamine Yamal oo garoonka qabsaday, nambarkii 10aadna akoonka u furaa leeyahay. gool muhiim cajaa'ib ahayd ayuu banaanka ka dhaliyey, sidoo kale gool cadaradeda wadata ayuu dhaliyey. marka 2 gool ayuu ku lug lahaa kulankii 7 gool ka dhashay. sidoo kale Lewandowski ayaa la arkay asigana shabaqa gaari, Christensen, Ferran Torres iyo sidoo kale Gavi ayaa leeyahay. marka inaba caadi maahan, kulan xamaasidiis watuu ahaa, las jajaftay, wax walba ay ku dhaceen. Rashford dheelay, walla kulankaas kulan oo ahaa, walla naadiga kasoo horjeeda Barcelona caqaa'ib kale ay wadato tiktaaka ay dheelaysay. marka waa arki doonaa kulamada soo socda iyo Barcelona waxay ka yeesho. Lamine Yamalna waxaa leeyahay akoonkiisii nambarka 10aad waa u furtay, haba iska babaashaal ninkan askana neekeye kulanka doo soo galo waxdariisoo wata. nambarkii 10aadna waa ka kabtaan Aruqana waa jooga. ninkaas go'aan ayuu ku gaaray inuu san ka tagin naadiga kubadda cagta Barcelona. maxaa laga soo calaamiyay kulanka? waxaa kulmay saaxiibadii hore naadiga kubadda cagta Manchester United, Jesse Lingard iyo Marcus Rashford. wax walba marka waxay noqdeen dhan, meesha ku wada hadleen, waa kaftameen, waa qaraxaysteen qolka labiska ilaa ay garoonka maba la kala hareen. sidoo kale waxaa ka mid ahaa in Lamine Yamal iyo Marcus Rashford fanaanadooda oo isaas ku soo saartay barta Instagram-ka. wuxuu leeyahay dadkan dad oo saaxiibo dhow ayaan nahnay, marka wuu ku faanaa leeyahay. marka inaba caadi maahan, kulankaasna wax qabad muhiim ayuu watay. sidoo kale maamulaha naadiga kubadda cagta Barcelona Laporta oo ka hadlayo Lamine Yamal ayaa yiri Messi xidig ka fiican ma jiro saaxada kubadda cagta inta maamulay soo arkay, waa ciyaaryahankii ugu muhiimsanaana la soo shaqeeyo. laakiin hadda aamino generationka hadda soo baxayo ee shaqeysanayo, naadigana hore u wado. wuxuu soo qaatay Badri iyo Lamine Yamal uu ku dhahay labadan waa labada Barcelona hogaaminaysa oo cad. marka ka gambasho ma sameynin, marka Messi ma xaqirin booskiisoo dhiga, wuxuuna dhahay hadda aamino jiilkan hadda haysano oo aan ku dagaalamayno. inaba caadi maahan. sidoo kale kulan ka tirsanaa isku diyaarinta xilli ciyaareedka soo socdo ayaa AC Milan 9 gool ku xaaqday naadi kale. sidoo kale AC Milan ayaa 9 gool ku badisay, inaba caadi ma ahayn. oo ka faro 2 gool dhaliyay iyo xidiga badan. Rafael Leo la arkayay, Musa la arkayay, marka waa 9 gool waa babiyeen cidda. inaba caadi maahan. waxaa leeyahay AC Milan kulan dhaxaasna Liverpool ee garaacday, haatanna naadi yare ee Feera u saartay 9 gool. inaba caadi maahan. marka waa ay sii socdaan kulamada la isku diyaarina xilli ciyaareedka soo socdo, walla wax iska yar naadi walba 2 kulan ama 1 kulan oo hare, kadibna horyaaladii saxda la aadi doono, Feera la iskaga dhici doono. AC Milan waa ka, Barcelona waa ka, Arsenal gooldaradana waa taa. markana waxaa leeyahay naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa qarka u saaran inay ka gudbiso dalab waali ah xidiga Sesko. RB Leipzig ayaana dalab muhiim u diri doontaa. xidiga iyo naadigana waa isfahmeenaa leeyahay,
Manchester United waa uu aqbale xitaa haddaysan ciyaareynin tartan Yurub ah. Marka Sisco asigana wuxuu ku biiray ciyaartooyda doonayso Manchester haddaysan ciyaareynin Yurub xataa waa rabnaa ayay leeyihiin. Marka Sisco heshiiskaas waa ay la gaareen markaana naadi kubadda cagta RB Leipzig ayay u sheegeen haddii ciyaaryahanka uu diyaar yahay inuu soo aado Old Trafford ay qiimo lacageed farta ka soo saari doonaan. Marka waan arki doonaa saacadaha iyo maalmaha soo socdo waa dardar ku soo gali doona Manchester iyo dalabkeeda oo RB Leipzig ay u gudbi doonto. Marka Sisco asigana wuxuu qarka u saaray inuu Premier League imaado oo la jaan qaado jiilka cusub oo Amiron ku dagaalami doono seasonka soo socda. Marka ninkaasna Sisco qarka ayuu saaran yahay inuu Premier League soo gaaro oo Manchester United ku soo biiro. Sidoo kale waxa majalada ay hadal hayaan Antonio Conte ninkan caadi maan ninkan wixii xaqiraad inta iska dhig macallin maanta qaada hadii loo dhayo qaadale hadii lii dhaho Antonio Conte number 1 waa. Sidoo kale Enrique ajiro macallimiin raba inay guuleystaan way jirtaa macallimiin xirfad leh tactic wataan sida Pep Guardiola macallimiin tactic wataa jiro iyo Jose Mourinho Ancelotti waa buuxan laakiin maanta macallin hadii la dhaho oo naadigo tago go'aamadiisa ka shaqeynayo guulo waa gaara koow qaada Conte Enrique farta uu qaad waxa leeyahay wuxuu qaaday koobkiisii 6aad ee Serie A seasonkii la soo dhaafay 3 oo la qaaday naadi kubadda cagta Juventus. Sidoo kale Chelsea mid oo la qaaday Premier League wuxuu imaaday Inter Milan horyaal oo la dafciinko horyaal qaadi la Napoli seasonkii la soo dhaafay ogeen haatan naadi waa loo sii dhisay. Marka inaba caadi ma Antonio Conte wacdariisa ayuu wataa ninkaas farta laga qaado hadduu seasonkan sii joogo naadiga loo dhisay waa ka bixisiin tartiibkiina magaalada kala gal faraha ka qaada wixii koob oo Taliyaan laga dhigo Champions League ka soo qayb gala sankan inuu dagaalamo raba ninkaas. Marka Antonio Conte caadi ma ninkaas waxa waaye farta laga qaado. Sidoo kale Rasmus Hojlund ayaa diidan batatan inuu ka tago naadi kubadda cagta Manchester United asoo dalab xoogan ka helay naadi ka dhisan Talyaani. Sidoo kale RB Leipzig xataa heshiiskiisa in lagu darabto haddii Sisco oo Manchester United aadayo laakiin asiga uu cadeystay wuxuu leeyahay go'aankeyga waa ina joogo naadi kubadda cagta Manchester United wax walba ay ugu qaadatana waa tartami doonaa haddii Sisco oo imaado xataa wuxuu dhahay aniga hadda le waa jira 24 jir le hadda weli waqti haysta 34 aniga jira marka weli waqti haysta le anaha idajinina booski oo dagaalama seasonkii oo wax ma ejire maani abaa taayay marka wax buu dareemaya Hojlund Manchester United inuu sii joogo go'aansade waa arki doonaa wixii ka soo kordho haddii suuq ay imaatay in la baxana waa baxa doo go'aan gaarna uu jooga sidaas iyo amaana ala muuqaalka xiga noo balane mac salaamo subscribe like share ayno balana bye bye.